ninka shaqaalaha dawladda hoosa ee meediyaha ka cabanaya waxaan noo haynaa faldambeed oo galay oo muuqda oo cad oo aan markii ugu horeysay aanu internet audit ahaan saldhigga ku geeyay saldhiggana aan ku wareejiyay gudoomiyaha oo suldaanada uu ka barayay uu ka codsaday ayaa saldhiggii ka soo ka aqbalay buu ka soo daayay damin buu ku joogay aan xisaabtanna baanay buuga aad arkayso nambarkiisu nooca yahay gabigiisaba waa la gubay buu yidhi waxaan sugayay ilaa 6 bilood xisaabtaasina ma xidhmaysan ilaa buugii la helo ayaa dhaweyd ayuu qashinka yara dambe isagoo bahasha ku wada ayuu ii keenay wixii daafad baan ka soo helay waa kan buugii waa yahay buugii maxaa lagu sameeyay waa nambarka aad arkayso 363001 waa buugga ka bilaabma waxa lagu sameeyay example nambarka noocaas ee uu qabtay lacagtaasi mar wuxuu ku qabtay isla nambarkii 500 mar kale wuxuu ku qabtay 100 laana waad arkaysaa waayay 100 laankii ayaa khasnada tagay 500 oo kale ayaa jeebka lagu shubtay waa kale different waa buugii oo triplicate-kii iyo originalkii labadiiba original ahaan loo isticmaalay waxa kale oo jirta kan kale example waa la mid isaguna marka waa 500 isla nambarka waa 100 kii kale la mid yahay waxa kale in halkan ku hayaa 5 milyan oo aan xiroonin waxa buugiisa dhabarkiisa qaarkii ku qoran ribooda uu isagu qoray uu leeyahay saldhigga dhexdiisa ayaa lagu sii daayay qofka caynkaas ee lacagtaan ka qaadayay Umar Buur baa joogay hebel baa joogay ha joogay ma oo biba lagu qoray maxaa lagu kansargay maxaa lagu macneeyay way haru macneeyaashaas oo dhan oo distar baan ahayn ma garanayo hantida ku qoran ma xarootay mise ma xaroon weey waxay ma xaroon weey waxaan taamil way taagan tahay intaas oo milyan oo kalena xisaab ahaan waan ku hayaanu waxaad arkaysaa buugga markii qofka loo jaray ee lacagtii laga qaaday ee lacagtii la isticmaalay dabadeed haddana waa la kansal gareeyay inta qofkii laga soo qaaday exaamalo badan ayaa halkan ku jira waa la mid halkaasi sidoo eegay kamarada haday qabanayso kaasi jeebka lagu qof bini aadmi laga soo qaaday dabadeedna dib baa loogu dhigay lacagtiisina waa la cunay sida darteed qoladayadan deegaankan Gadabursiga waxa lagu yaqaanay in dadka shisheeyaha aad u soo dhaweeyaan oo ay waliba tixgelin weyn iyo ilaalin weyn loo sameeyo intii aan ilaalin karaynin in dawri karaynin ka waan dhowrnay waliba maayarku lacagtii uu iga xareeyay xisaabtii aduun baa lagu sugayaa xisaabtaadii waa tan de ka jawaab waxaan ku weerinaa ku yaalay ya oo saldhig iyo wixii xaqay ka dhaceen de cadee taliya saldhigga hore leeyay ee la bedelay anu xaqeen ka keenay marka waxa weey ilaalin badan baanu lahayn daryeelaanu lahayn waliba xuquuqdiisa ku xadgudbin oo dhidahan ayaan islaha maayarka wali kalamaan tashan laakiin isaga war xisaabtaada uu saxaabad ku kari waayay agaasimaha maaliyadda cashuuruhu waa kan weli jooga ninka maanta media ka hadlay Maxamed Cabdi Xaashi waxa weeyaan dambiile sameeyay forgery aan lagu aqoon shaqaalaha aan lagu aqoon oo la aqoonba ayuu forgery sameeyay kopiga
warqadda sare wuxuu ku qorayaa qofka uu siinayo 1,500,000 markuu ka qaaday 1,500,000 xaashada hoosena 100 buu ku qorayaa taas oo tobaneeya arina ayaa la soo qabtay waa lagu eedeeyay waa lagaga joojiyay mushaarkii iyo lacagtii iyo shaqadiiba sababtoo ah de waxa weeyaan inta kale ayuu sii qurminayaaba oo baabiinaya taa awgeed waa lagu xiray haddana waxa laga maarmi waayay dhaqan ahaan damiin baa lagu siiyay salaadiinta iyo madax dhaqameedada degmada isagoo yaani la leeyahay waa meel shishe aanoo jeclayn maanta inaan ka hadla halkan isaga ayaa la keenay maadaama aan ahay agaasimiye waaxda cashuura waxa weey dhaqameed baa lagu siiyay waxa lagu sii daayay oo dhaqameedada ayaa la siiyay iyo salaadiinta ayaa damiin hal lagu siiyay ka maamul ahaana maaha cid maamulka degmada sidoo u dhan yahay fulin iyo agaasimiyalba waxa la isla gartay in shaqada laga joojiyo maadaama uu faldambiyeedkana aanu ahayn mid fudud hal xaashada baa ku filan oo originalka iyo kobiga laba lacag ku kala qoro waa dambi waxa weeyaan waqtigii hore maayirkii hore xataa iyo maayirkii ka sii horeeyay waqtigaas oo dhan baa la isticmaalay waxan oo deydka ah marka taasina tu loo dul qaadan kara maaha tu dadka shaqaalaha uu barayana maaha oo uu barayo oo lagu sii dhexdaayo ma noqon karto maanta isaga ayaa maanta naga hadliya halkan kaagaasimo ahaan sababtoo waa shaqadeydii waa professionkaygii waxa weey intaas oo dhan waa iska dhageytireynay run ahaantii aniga waa seedigay ninkani mana jecli inaan ka hadlo laakiin maanta isaga ay yeedhay waa shaqadeydii ayuu waliba maanta leeyahay si dulmiya ayaa waxa in lagu haystaa mana noqonayso taa ma noqonayso wax lagu haystaa wax xaq ah oo waliba loo xadaaf loo sameeyay xadaaf baa loo sameeyay يعني إن حدقد بالوسمين لسيد دايو ما هين وحويان تاسين يسقى يسكو جيستي ما تينو هذلنا ما هين هذا الكيس أنا لك يا رماش وأنا واحد فوجري وسمين فوجري بنا دم بجارولي